Qaar ka mid ah beeraha magaalada Cerigabo ayaa waxaa gelikii dambe maanta ka kacay dab kaasi oo khasaare baahsan u geystay dhir iyo geedo kale oo ku yaalay beerahaasi waxaana dabkan uu ka dhashay kadib markii dadka beeraleyda Cerigabo ay dab iyo qiiq ku shideen ayax tiro badan oo beerahooda ku habsaday si ay uga kiciyaan hase yeeshee dabkani waxa uu sababay inuu khasaare u geysto beerihii ayaxa ay ka kicinayeen waxaana dambinta dabkaasi isla markiiba gurmad dabdamis ah la soo gaadhay ciidamada dabdamiska magaalada Cerigabo kuwaasi oo ku guuleystay inay si buuxda ay u saafjaraan dabka waxaana halkaasi ka hadlay taliyaha ciidanka dabdamiska magaalada Cerigabo isagoo ku hawl jira daminta dabkaasi waxaana uu taliyuhu fariin u diray bulshada magaalada Cerigabo waxaana lagu soo wargeliyaa baarakood iyo 12 barkii inay guudayaan beerahaas ku yaalay xaafad Soomaal degmada Cerigabo beeraha waxa sababay waxa yimi ayixi kadibna ayixi loo shiday sidaas beeruhu yaraan saddex beerood way gubteen 10 beerood hareeraha ka xiga iyo guryahoodii waan badbaadinay dadweynaha area xaafadda degan faynta badan nala shaqeeyay si wanaagsan iyo booliska dadweynaha reer Cerigabo waxaan u digayaa door horena waan u sheegnay markuu ayixi maado dabka yaan la iska shidin nambarka ciidanku waa 990 iminka guddiga nabadgelyada gobolka go'aan ka soo saartay qofkii maalintii dambe ay xaashida ilaa maxkamad baa la tiirsanay qofkii beertiisa kuba wixii qarash baxa ciidanka soo baxa beeraha kale ku ogdow hawlgalka wixii wax ku noqdo oo dhan qofka beerta ay xaashida ayaa ka mas'uul ay iminka waqti abaarad baan ku jirnaa ay wuxuu cunaa ma jirto dadweynaha waxa labaad u celinayay inaanay dabka iska shidin ay iska shidin ilaahayna kuma keenay aafooyinka dabku markuu imaado halka lambarka 3 nin ka garaacaysan garaacay naan sida garaac dadweynaha Cerigabo waxaan kula taliday markuu dabku dhaco baawrada dadamiska iyo boolisku wadada ay soo marayaan lahayn khaasatan beeraha waxaan u sheegaynaa marka dab aragtaan wadada wayna sii furtaan si baawrada gurmad ku fudo marka dabku uu fidayo hadaan wada loo samarayna jirin Saciid Muuse Faarax Saciid Qurbaawi telefishinka Badcas TV Cerigabo ma ogtahay inay Somtel bilowday abaalmarino cajiib ah oo ay macaamiisheeda ugu tala gashay waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab microwave TV iyo mobilo dhammaan shirkadda Samsung ah account lacag ku jirto oo banka dahabshiil ah dalxiis aad ku degto hoteelada Damal iyo waliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah kuwaas oo qaar ka mid ah gaadhayaan qiimo $30,000 intaas iyo xidhmooyin kale oo guud ahaan 5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal ama aad ku shubato internet ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada ama aad tahay qof u adeegsada dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah ka qaybgal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha si aad u hesho xog intan ka badan fadlan garaac 333 ama 111